ayadoo kambaniga Seal and Security Force oo ciidamo ka aasaasay degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa maanta laga dhagax dhigay Galdogob saldhigii ay ku shaqeyn lahaayeen ciidamadani oo ay baahi weyn u qabeen deegaanka iyo shacabku ayaa ka howlgali doonaan dhammaan deegaanada gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galdogob. madashi dhagax dhiga saldhiga ayaa waxaa hadal ka jeediyay saraakiil ka tirsan ciidanka iyo xubno kamid ah bulshada rayidka ah oo soo dhaweeyay aasaaska ciidankan. waxa ayna sheegeen in ciidankan ku soo aadeen xilli loo qabay baahi weyn oo dhanka ammaanka ah. bismillaahir rahmaanir rahiim. Seal and Security Force waa kambani bareefad ah kama shaqeeya arrimaha siyaasadda, kama tirsan kooxo gooni ah ama group. Seal and Security Force waxay ka shaqeysaa arrimaha amniga, waxayna la shaqeysaa hay'adaha aan dawliga ahayn iyo kooxda dawladda. ujeedada ka dambaysa aasaasidda kambaniga waxa loo aasaasay markaan aragnay baahida amni darre ee ka jirta dhinaca xagga deegaanka iyo guud ahaan Soomaaliya. sida wada ogsoonahay Soomaaliya waxa ka jirta dhibaato soo socotay muddo 32 sano ilaa haddana dhamaadan lahayd. amni darrada waxa qayb ka ah isfaham la'aanta iyo kalsooni la'aanta dadka Soomaaliyeed dhexdooda ka jirta. ku nool dawladda iyo dawladda in la helo ciidan isku dhaf ah maadaama Soomaalidu dagaalo badan soo kala dhex mareen, kalsoonina aysan jirin. waqtigan kuna aqoon tahay in la helo ciidanka hadda jira duwan oo aan ku shaqeyn qabiil deegaan ama urur. waxaa markaas fududaan doonta in la helo xasilooni, amni, siyaasad xalaal iyo doorasho xaq ah. maanta waxaan furnay dafcadii ugu horeysay ee ciidanka deegaanka gobolka Mudug. ciidankan wuxuu ka shaqeyn doonaa ammaanka gobolka Mudug iyo nawaaxigiisa. waxaan dhammaan dhalinyarada deegaanka ogeysiinaa inaan qorayno ciidan kale, marka waa inaan ka soo qayb gashaan si aad dadkiina iyo dalkiina u difaacdaan. waxaan kaloo maanta dhagax dhigaynaa saldhigii ciidanku tababaran lahaa. waxaan soo dhaweynaynaa qof kasta oo ka shaqeynaya horumarka iyo amniga Soomaaliya. bismillaahir rahmaanir rahiim. 28 bishii 2022 maanta waxaanu dhagax dhigaynaa xeradii ciidanka dacfadii koobaad ee degmada Galdogob. waxaan soo dhaweynaynaa ciidanka aanu baahida u qabnay dacfadii koobaad ee maanta laga dhigay xeradiisa degmada Galdogob ee gobolka Mudug. aad baan u soo dhaweynaynaa, baahi fara badan baan u qabnay. waa waxaan aad u doonayno, waa waxaan doonaynaa caalamku in aad nooga gurmadaan oo nagu taakulayaan. waxaan codsanaynaa in naloo tayeeyo oo aad aanu noloku dhiirigeliyo oo noloku qabto. waana soo dhaweynaynaa, aad baan ugu farxasanahay. ciidanka baahidaan u qabnay Ilaahay maanta noogu gargaar inaanu helo degmada Galdogob aan ka dhex dhigno. aad iyo aad baan u soo dhawaanahay. billaah tawfiiq. Maxamed Umar, Galdogob Media.